maamulaha xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Daadmareer Mustafa Cabdullaahi Cabdi ayaa maanta mar uu waramayay warbaahinta qaranka ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay muddadii koobnayd ee uu furnaa xafiiskani iyo waliba sida ay ugu hirgaleen cashuuraha kala duwan. Wad sida dadkii xafiiska waxaan qoray 18 bisha September ku aadnay muddadii uu madaxweynuhu socdaalkiisii ahayd halkan uu marayay waxaana xarig ka jaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka mid ah mashaariicdii uu ra'iisul gobolka Daadmareer madaxweynaha xarig ka jaray xafiiskani kadib mudashan cishaa waxaan galay hawlgal beeralayda deegaanada beeralayga ah 23 bisha September waxaanu sameynay si rasmi ah cashuuraha kala duwan dhammaan halkan uga bilowday gobolka Daadmareer ilaa iyo haddana si habsamiye loo socdaan runtii muddadan u dhaxaysa waqtigan hawsha bilowmay iyo maanta oo ay tahay 12 bisha October runtii 19 casho kaliya way muddo kooban dakhli aad u fiican baa ka soo xarooday gobolka Daadmareer waana ugu mahadcelinaynaa bulshada reer gobolka Daadmareer oo si fiican cashuur bixinta ugu maamulaha xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka Daadmareer ayaa waxa uu sidoo kale baaq u diray beeralayda kala duwan ee gobolka maanta fursadan uu siiyay TV-ga qaranku haddii aan kaga faa'iideysto waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan beeralayda kala duwan ee deegaanka gobolka Daadmareer oo aan leeyahay muddadii aynu ku soo ballanay waqtigii wacyigelintii hore oo ahayd 20 bisha October in aad ku soo xareysaan cashuurihii beeraha ee ahaa muddada 2 sano ahaa 2012 iyo 2013 sidii aynu ku soo ballanay kuna soo hagaajisaan gudiyadiina iyo xirmaanada tuulooyinka. Muuse Salmaan Maxamed, shabakada caalamiga ee Odwin News, magaalada Odwin.